muqdisho maanta waxay u kala qaybsan tahay 4 qaybood bay kala tahay oo meelba meesha kale ka xidhan tahay shacbiga dhibaato badan bay qabaan iskuuladii caruurtii ma tagayso meel waliba waa xidhan tahay qaraxyadii way socdaan maxay ahayd dadkii waayeelka ay xanuunsanayay ma helayaan meel ay maraan anigu waxaan markhaati ka ahay 11 April waxaan u socday meesha ciidamada maalinta ciidamada indhahaygan saaray gabadh ku dhalaysa geed hooskiisa oo maro la saaran loo raadinayo oo ilmihii ka soo jeedo mas'uuliyadda ayaa leh waxaan maqlay waxa loo ballan qaaday dadka basas lagu qaado waxay ahayd qorshaha in la sii dejiyo inta la xidhxidhin meelahan waxa dadkan laga yeelayo inagu dadkaynu masalaan waan arkay odayaal socon la oo sida taayirka la riixayo waxaan arkay dad shacab ah oo gaarigii anigu la socday ku soo qamaamay oo le celiya dila area oo annaga dib noo qabsaday dhibaatadu ma yara mas'uuliyaddu inagayna saaran tahay xildhibaano gudoomiye anigu waxaan ku talinayaa mas'uuliyiinta haysa waa in si bareera loola hadlaa haddii aan ku qanci weynana waa in si kale loola xisaabtamaa dhibaatada enough is enough kama adkaysan karno askartii mashaakil baa haysta waa la socona bariya dhaweyta godoodkay samaynayeen inkastoo qaladaad kale ku dhex jireen haddana maanta gaari haddaa kaxaysato waa wada ogtiino jid ma mari karno sida shinnaday kugu soo qamaamayaan iyagoo dollar iyo laba ku weydiisanaya xamar kaliya dhibaatada kama taagna waxay ka taagan tahay dalka Soomaaliya oo dhan waan ognahay oori ayaa iyada iyo ubadkeeda lagu dilayaa dowlad goboleedyada qaarkood xaasas baa lagu dilayaa oo odayaashooda ku dilayaan 6 jir ilaa 12 jir lagu kufsanayaa laguna dilayaa 7 jir baa aabihii ku dilaya waxaabaa cuntay masiibo dalkan oo dhan ku dhacday waaye aan si wada feejigan ugu fiirino oo yaynaan dhihin xamar kaliya waaye iyo dhagaxya meel walba lagu xirta caasimada adduunyada dhagaxyadu ku wada xiran yihiin waa wajahayna maanta marka 275+1 ayaa wajahayna sidii dalkani meesha loo socda aan u aadi lahayn amniga cadaalad iyo dib u eegista dastuurka sharciga doorashada maxaan haynaa kal fadhigi shanaad fadhigiisi afraad ku jirnaa intee loo socdaa maba ogin 275+1 markaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh ku yimid +1ka berina madaxweyne farmaajo ku imaanay dastuurkan dib u eegistiisa maalin kasta ma laba reeraan u kordhinaya anigu warmawla noo taala intaan ka badan aan wajahno aan doorashadii meesha loo socdo aan ogaano dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda baa hool naga sugaaya mucaarad iyo muxaafid ereygaas rabaa mudane gudoomiye mucaarad iyo muxaafid waxaa la kala noqdaa ma kala nihiin 275 xildhibaan +1 aan nahay mucaarad iyo muxaafid waxaa la kala noqdaa sharciga asxaabta markii la ansixiyo oo xisbi xaakim talada dalka uu ku guuleysto xisbigii kale ama asxaabtii kale markii tirada la qoondeeyo oo guuldarraysataa la dhahaa weli maynaan gaarin muxaarad iyo mucaarad shaqadana horta alla waayo